Asalaamu calaykum asxaabta Maamuna Janaal. Maanta waxay nii wadaa sida oodkac loo kariyo. Waxaan jeclahay inay iga faa'iidiin anigana wixii qaldan aad ii sheegtiin. Waa oodkacii oo lasoo jarjaray, digsigaan ku shubay, dabkaan u shiday. Markuu karo cabaar uu karo waa ogtihiin u malaynaa biyo oo dhalaya intuu biyaha ku kursanayna waa asxaabta waa kaasaa oodkacii oo karay muddo 15 daqiiqo ah. waan walaaqayaa, waa isdhexgelinayaa, biyo dhalaya bardu biyaha ku dhaafaya ilaa biyaha oo asaga uu ka gursado. oodkaca uu fiican yahay in kariskiisa la barto, waa mid noo ah hidde iyo dhaqan haddaan Soomaali nahay. oodkac haddaanan haysanin ama aan la cunin waxaa waaye dhibkeeday leedahay, inkastoo hilibka caafimaad lahayn, laakiin anaga oodkaca hidde iyo dhaqan aan u leenahay. haddana waxaan jeclahay sida loo kariyo inaan niila wadaago asxaabta aan jeclahay, walaalahayga qaaliyaasha ah, gabdho iyo wiilal waalid. asxaabta waa kaasaa muddo 7 daqiiqo karay, saa u jeediin biyuhu ka kursanayaa. waxaana diyaarsanayaa heel yar aan ku daro iyo waxaa u dhiman saliidana markaan ku daraayo waxaan jeclahay inay asxaabta saa u jeediin saliidii aan ku daray, heelkina waa ku daray. waa kaasaa waxaa u dhimanba waa wax yar, muddo 5 daqiiqo ah. waa kaasaa Maamuna Janaal waxay samaysato ama guriga u jeclaysataba ama ciyaalka u jeclaysataba waxay jeclaatay inay niila wadaagto oo ninkana aa ra'yigiina dhiibatiin. waa kaasaa janaalkiina waaye haddaad ku cusub tihiin, inkastoo anigana aan cusbahay. subscribe, like, share, commentigana hoos iigu reeba, jawaabta waa ka bixinayaa. waxaa kaloo rabaa ducadiina inaa i support gareysaan, inaa i garab qabataan, anigana aan dadaal dheeraad muureeyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.